Resolution A/73/L42 has failed to obtain 2/3 majority. Is not adopted. waxaa guuldaraystay qaraar uu wadankaasi Mareykanku hor keenay golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey kaasoo lagu cambaarayn lahaa gantaalada ay ururka Xamaas ku tuuraan wadankaasi Israa'iil. Qaraarkan ayaa waxaa ogolaaday 87 dal waxaana diiday 57 dal halka 33 dalna ay ka aamuseen. waxaana uu qaraarkaasi sidaasi ku waayay tiradii loo baahnaa ee 3 meelood oo 2 meelood. ku dhawaaqida natiijada ayaa waxay u dhacday sida tan. The result of vote is as follows: in favor 87, against 57, abstentions 33. natiijada codbixintu waa sidan soo socota. waxaa ogolaaday 87 dal waxaa diiday 57 dal waxaa ka aamusay 33 dal. Resolution A/73/L42 has failed to obtain 2/3 majority. qaraarka tirsigiisu yahay A/73/L42 waxa uu ku guuldaraystay inuu helo 3 meeloodba 2 meelood. sidaasi darteed qaraarkaasi muu ansixin. Therefore, resolution A/72/L42 is not adopted. ergeyga dawladda wadankaasi Mareykanka u qaabilsan Qaramada Midoobey haweeneyda lagu magacaabo Nikki Haley ayaa sheegtay in arrintani ay garab istaag u tahay taariikhdii soo jireenka ahayd ee khaldanayd. waa sida ay hadalka u tiriye maadaama ay tiri Qaramada Midoobey aysan weligeed cambaarayn caynkan oo kale ah jeedin. afhayeen u hadlay ururka Falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa waxa uu sheegay in tallaabadani ay dhirbaaxo kulul ku tahay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. ra'iisul wasaaraha wadankaasi Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in inkastoo aan la helin 3 meelood oo 2 meelood ee loo baahnaa haddana waxa uu sheegay inay tahay markii koobaad ee dalalku ay si aqlabiyada uga soo horjeestaan ururkaasi Xamaas. qaraarka Qaramada Midoobey ayaa culays siyaasadeed leh balse ma laha wax tallaabo ama ficila. Siciid Axmed Tamreyse wararka telefishanka caalamiga ah ee Star.